السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان ببلشدة يقول حدن عاد بردي السلام يا ما شاء الله. waxaan rabaa inaan arrin yar halkan ku yar falanqeeyo oo ku saabsan laascanood. laascanood habeen walba horta maxaabiistii joogtay waa la laayaa, waa lala baxaa. shalay waxaa la yidhi daraato sida ay Somaliland qorayeen arrimaha dibadda waxay sheegeen in 600 soo gashay. 600 waxay bilaabeen baa la yidhi si aan dadku asxaar isugu samayn, la isugu soo noqon, la isnaco, la iskaraahiyeysto. nimankii madaxa duubnaa waxay sameeyeen in maalin walba cid la baxaan. haddana waxay soo gaadhisay Faysal Cabdi Bootaan la dilay, laakiin aan weli la hubin. waa nool yahay, waa la dilay, waa nool yahay, labada waa la leeyahay, laakiin I don't know. laakiin waxaa la sheegay xal ugu dambeysay in ay 30 la baxeen. nimankaas aan niman cidna ka haybeysanaya ahayn. waxaa kale oo jira in ay magaaladii laascaanood riyadoodii ay beenowday. Somaliland bay ka carareen iyagoo uga cararaya qabiil ahaan. waxay galeen hadeera laba gebi dhexdood gabal may gu dhacay bay qaadayaan. nimankii Puntland waxay sheegeen gobolku inuu Puntland ka tirsan yahay oo uu Puntland yahay. ku soo dhawaada Puntland baa la yidhi eedooyin. rag baa naga dhintay dagaal waanu galnay. That's true. dhulbahanta waa qaybsan yahay. qaar Puntland bay rabaan, qaar waxay rabaan inay keligood istaagaan, laakiin keligood isma taagi karaan. keli ahaan isma taagi karaan. laakiin Puntland hadday galaan dee Puntland waa maamul goboleed la aqoonsan yahay. marka hadda xaaladda taagan ayaa waxay tahay laba gebi dhexdood gabal ma igu dhacay ayuu dhulbahanta taagan yahay. guud ahaanna nimankii madaxa duubnaa ayaa hadda control ku haysto magaaladii. habeen walba laan qaybta casi subax waxay tahay halkan shalay mayd ka soo qaadnay, maanta ka soo qaadnay, tal ka soo qaadnay. maxaa maalin walba mayd ka dhigaya? why mayd baa la geynaya? waxa la qof kasta baa la dilaya. hadda maba ahaba kaasi waxa qoonay intay askarta ciidanka u geliyaan hubkoodii badhay waa Somaliland askarteedii inta meelaha ka helay halkan aanu ku dilay mana aha. marka waxa ciidanka Soomaaliya ma dhamaado miya jimciisha 20 maraysa maanta bisha waxay maraysaa 8 iyo 9 wax suurtagal ma aha, wax aqli garan ma aha baa la yidhi. marka arrintaasi runtii hadda laan qaybta casi xitaa kafiis bay ku riday. nimankii madaxa duubnaa hadda waxay damceen inay dadkii xasuuq xalal wixii jiirasha ku jiray wixii dhaawac ahaba khasab kula baxaan iyagoon cidna waa bayeelinin. shalay waxaa la ii sheegay in 5 nin lagala baxsaday ilaa 6 nin lagala baxsaday oo hawdka la geeyey oo dhulbahantu la baxsaday. marka iyaga ahmiyadda ugu weyn waxa ay tahay oo keliya maaha inay dhulbahanto u heli, laakiin waa inay isku sii diraan si aan dadka asxaan uga dhammayn uga dambayn oo dib dambe laysu aaminin oo gam iyo muruq meeshii layska arkoba sida bahalkii wankii walaaba laysu cuno inay dadka u galaan oo u sameeyaan ay doonayaan. insha allah bidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inay khayr iyo barako iyo baraaro ku dhammaato. nimanka afka duubana loo adkaysan maaye in guluf colaadeed hal mar lagu qaado. dhulbahantana waxaan u maleynayaa kulli isaga laftiisu hadeerto wuu iska soo noqon dee because hadda chance kale ma haysto. dee haddii kale Puntland buu raaciyo afduub maca afduub baa safka laga gelinaya. marka kolleyba xaaladaasina waxaa ka soo cusboonastay gobolka Sool. waxaanu seelanahay insha allah billahi karim khayr iyo baraaro iyo bash baanu ka rajaynaynaa insha allahu bidmillaahi kariim khayr baanu rajaynaa. laakiin waxaa hubaala inay nimankii afka duubnaa soo galeen gobolka Sool hadda gacanta inta badanna ku hayaan. halkaasina waa intaa. xagga Somaliland xaaladeedu ay u kacsan tahay. waxaase la yaaba jamhad niman idhi jamhad baanu nahay oo marba meel furanaya. okay, nimankaas buurta waxay u kareen markii hore inay doorasho doonayeen. doorashadii waa la aqbalay, waa la ogaaday, banaanka loo soo dhigay. haddeer waxay bilaabeen inay baabuurtii dowladda ka kaxaystaan marba tuulooyin soo galaan. waxaana ka dhacaya halkaa isdil ama iska hor imaad beeleed baa ka imanaya. marka waxaan oo lahaa dadkan nimankan ka mas-uulka ah ugu talagalay inay dadka ka noqdaan dhuljiif. hadda dhuljiif baynu odhan karnaa, ma odhan karna waa jamaad, laakiin waa dhuljiif baynu odhan karnaa. nimankaa dhuljiifka ana in sida ugu dhaqsaha badan wax laga qabto iyaga laftooda oo ay reerihii ay ka yimaadeen dee wax ka qabtaan. marray dhaheen doorashaanu ku jirno, doorashaanu doonayna, markii doorashadii loo dhameeyay leeyahay wax weyn baanu ahayn xagaan awal ku socday idinkaan la dagaalamayna. dee caqli maaha. haddeer marka sheekadii soo dhammaatay inay nimanka Maryoonis iyo garxajiskana ay ceebeeyaan oo ay ka dhigaan niman ceeboobay ay ka dhigaan. dee yay idinka qaadin baan lahaa sharafta yaan idinka qaadin. dee ama nimanka soo qabta waynamadiinii waa garanaysaa soo qabta. dee ama yar halkana waxa ka soo socota baan malaya foolxumo kale insha allah ilaahay subxaan ka rajaynaya inaanu inagu noqon wax ina saameeya.
aadna waa idiin salaamaya dadka somaliland waxaa leeyahay nabadiina ilaashada qof walba nabadu waa udan qof kasta nabada iyo halka uu joogaa waa udan run baan idiin sheegaya waa idiinta nabadu hooyana qax uma fiicna hooyana silc uma fiicna hooyana oohin uma fiicna inta ay haystaan baa nf ah markaa dadka somaliland joogo nabadiina ilaashada wax kastoo nabadiina ka hor imanayaana buus dhaha oo iska eriya aadna waa idiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idinkuna jabhaday joojiya ku xumaynta ciro aad baan idiin salaamaya